ما يوسف وشيء أنا وعرور حلقة نلقى أنا أقبل بلايا بدل يسار وهل كرسي هذا هذا سي أقول سنة هيدين كترتا يعني بلا يدين أقول سنة دي أنا أقدر هدي اللي لعب بطلان بعد تطبيق طبعا كلا أو صاح رانيسا والرئيسية تبغى دجال هرتي وأركواء وضلع الأصعدة. فهم وحشكت إنه ورزنجلي يمجرتين إفرمها صوبنا يعني أرنكاسي سوقف وين مهن إن أي ما داي فرونتا هرتيها ما كنت شغله دولة هم كنت شغله فرونتا أنا شغله وجوميسي أنا قبيل بنا هذا هرتي بنا لي هذا ماش هرتي عام أقول لنا إنه في موقوش مرقب له وجري لي كرانه بلقيس قوم كذي بيكجرحش ضد كحب حدك وصورنا ويدن بربرونيا مع وحمينا وهري إنه عادية عن أطقنا مرنا دمر كالمسؤولية ده الرجال ونقاومون على النساء له دمر رجع مسؤول كا مر حتى قرآن كا ولا يتحمى والمساكين اللي سوء عليا أقونت هي مساكينته nabadda wadayaal idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo muuqaalkeena idin soo gaarayo studio waxa marti ugu ah professor Liban Dayso Jeeso oo kamid ah professorada Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan isdul taagno dhowr qodob oo ay kamid tahay go'aamadii ismada SSC Khaatumo ka soo baxay ee dabcan markaas halka mowqif ay ka qaateen 17 xildhibaan ee maamul goboleedka Puntland ee reer SSC iyo sidoo kale cunaqabateynta dhanka hubka ee Soomaaliya laga qaaday dhanka deen cafinta iyo in aan qayb ka noqonay bulshada rayidka ee bariga Afrika sidoo kale waxaan isdul taagi doonaa arrimaha Ingiriiska oo dabcan arinta SSC Khaatumo dadku inta badan ay leeyihiin Ingiriisku diyaar uma ahan SSC Khaatumo inay noqoto maamul sida dabcan madaxweynaha maamul goboleedka SSC Khaatumo Cabdulqaadir aw Cali Firdhiye uu sheegaba professor Sodho waa baasha Umar Ali Yaisig waxaan ku hormareynaa shalay ay ahayd markii go'aamo مسيري أي سو صارين اسم هذا SSC Khaatumo أو وذا وحين الشيءين إن أي سن مرنبا أي رالي كأهين أنت ضبيت تمكي حلبان أي ولي كسي من نقدان مامل جولات كبودلان إسلام مركانا أي ليهن أنا جو حنا هي مامل جولات جارة أنت ضبيت تمكي حلبان نسيداس أيام كلها بل أرنكاس إن أركت أهان بروفيسور نيهو وصح وأعرف عن تصحيح عدينا سواء من لماذا هذا الحمر لوجه الله oo saxaafada xamar ay ku hadasho baadoo wariya ina ku soo celisay laga yaabana ka xumaa maamul goboleed ma aha Puntland waa dawlad goboleed Khaatuna waa dawlad goboleed dastuurka taasa ku taala Soomaalida wadanku ma ka dawlad ayuu leeyahay waxa weeye dawlad goboleed iyo dawladda dhexe dawladda dhexe waxa la isku darsado ma aha dawladda unitary government dawlad hal meel laga hago ma aha tii 60 iyo tii kacaanka halka aan ka gudubno mar dhanba topic dhan ka qabanayna dadka federaalnimada diidan dad boob socdaan u marinaya oo dad waxay salahayn raadinaya inda caluulay dad rabayna xukmaan weey okay ka soo gudub maamulka Khaatumo anaga la qaadanay odayaashu mid bay rabeen kurti mid waxay rabeen Puntland in laga sameeyo haado muddo 2 sano inta Khaatumo taagayso laakiin barashar baa qabsaday shacabka reer Khaatumo baan ogolayn شعب odayaashu dhagaxmo marka ka iimaan iyo dabaylo nabi ilaahay soo diray ma dad bay ka yimaadeen nin walbana nin ku abtirsadaa nin walbana jifu ka yahay Saciid Harti dad baa xukuma shacabkan Khaatumo ku nool meel laga mari karo lama arko waa shacab Somaliland diiday Puntland waxay u diideen inay dawlad ahaan uga mid noqdaan dawladda siman walaalahooda ee dadka Puntland ma aysan dadka Puntland waa A iyo B iyo C iyo D ba Khaatumo gudaheeday ka yihiin haddana furuntay joogan afar qodob iyo xid masasho qodob intaas soo jeediyeen shanta qodob waa lagu dhaqmayaa Puntland wax kama qabto awal Saciid Cabdullaahi Dini raalli buu ka ahaa mid kale waa capacity waa awood aad u tiro badan anoo ma tolkaan isku duraynaa hadda hadii la yiraahdo Puntland baa 17 kale oo soo xiranaysa oo SSC
dee waa dagaal horti waa arkiwaa waa dad dhan oo waa dulan u socda waa dad dhan oo gardarro ku socday noqonaysaa sida shacabka ay pressure u saareen siyaasiyiinta khaatimo iyo odayaasha khaatimo ba shacabka Puntland pressure u saareen kuwa Puntland siyaasiyiinta awalba siyaasiyiinta xumaan ka dhaxaysa shacabka loo shacab waxa ka dhaxayn khaatimo waa dawlad goboleed cidna ma arki waayi karto mid garaadadu waxay cadeynaysaa siyaasi odayaal iyo jamaahiir iyo daraawish inta weynay midaysan yihiin jamaahiirtu waa dadka day soo jeesaday inay intoo midaysan yihiin bay cadeynaysaa dad midaysanna cidka wax kama qaadi karto wata maxkamadda sare ee Puntland dabcan maanta war ay soo saarto ahaa in aysan go'aamadii ismada SSC Khaatuma ka soo baxay waxba kama jiraan ay ku tilmaameen mala socota warbaahinta maanta ma afkaaga maanta igu horeyso kowdhe maxkamaddu dib wax isku laabato dadka reer Puntland dadka Khaatuma maxkamadda xukunta mise odayaasha xukuma dadkana yeesay isku dirin nin dhulbaanta meel cidla laga soo xaysanayna ma jiro waa hadal gafa raali gelina ka bixiyeen meeshii dhulbaanta ku jiray oo 17 ahaa 17 xilliyan waxay ku bedeli lahaayeen hadii qabiilada kale oo daarood ay ugu dari lahaayeen hadday ugu dar meher Ismaaciil oo qotano Carab Saalax loo yaqaan jira leelkaas xildhibaanada waa ku dulmanaya waxa ma jarteen oo ku dulman baa jira kaski qabi geeso guul liibaan gashay cabdi kombo chambeela gari kombe iyo absame iyo sida iyo dir wixii loogu dar lahaa waxa loogu daro taasna inuu raali gelin ka bixiyo baajirta dadkan isdilimayaan isnaylamayaan hadalka tiri waa hadal la isku leyn karo gudoomiyaha maxkamadda sare hadalka fadhiya ma aha Khaatuma way tagtay ilaa mana soo celin karo day soo tiso siyaasad ahaan iyo dawlad ahaan bay tagtay dad ahaan ma istigin Puntland mid baa u furnayd intaan hawshaan dhicin odayaashaan u jirin hadday dhihi lahaayeen intiina kalena waxaa tii Nuur Axmed iyo Xasan Waas Puntland ha mid noqdeen inta kalena Saciid Harti maamul xasamaysteen oo xitaa gudoomiyaha baarlamaanka oo ninka Xasan Waas yahay ee Khaatuma hays casilo Puntland buu wax la qaybsanaya iyo Nuur Axmed wax la garan karay ahaan lahayd dadkan Garowe xaduudka wax ka degan dee ha ka simid ahaadeen idinku maamulkiina dhista 17kiina waa kala dhinno 10 qaata 7 la tagaa shan iyo shan baa Nuur Axmed iyo Xasan Waasiin lahayn wata fiican bay ahaan lahayd dhulbaxantana u riyaaq lahaa yar iyo weynba laakiin hadda afduub baa loo arkaa dadkuna odayaashu garaad jaacaas oo garaad ku weyn amaahin Puntland waxa la rabay laakiin wuxuu ka baqay jaahiirta day soo tiso jamaahirta waxa leedahay cabsida jamaahirta way wax ma laga baqay garaad u taayimaanaysa ما عيد قرآن إلى حي قرآن نمط كوسة دشي مر هدي الشعب كا يسكرون وده ها سمي سانو شريك ما دورن أنا كقاضي ما أنت قرآن نمط أنا شريك هو دورتي ما أنت هذا أنا قرآن نمط وإحنا رأي كوسة وين ويد وكقاضي مركا المحكمة صاروا بتلعنا رالي قرين دق بيوقف بحندون تا أنا ونكب حيان لنا إن شاء الله وخاتم ودول الجولات واتهاي فهم يوسف قوجي أو أهجبر كوسنتن هلجن كرير أساسي خاتمه أي دربة براه بالشدة صوف رئيستي أو شكتي إن قام مداسي garaadada ay qaateen ay tahay mid qalad isla markaana ay ku fuudaadeen niyo loo siyaawad baa anigu waa weey kara bal fahmay Yuusuf Qooje horta waa gabar waa sax waxay isleedahay ayadoo dhinaca waxay ka eegtahay walaalihiin idihii Khaatuma anaga dawlad ahaan ugu maanay helin waa gartay qabiil ahaan baan ugu helin halka dhig marka dawladnimada la bilaabayana dhaqaale si uu helaya dawladnimada baseline bullying baa laga bilaabaa asaas hoos laga dhisay qofna isoo qasnad u buuxdo dawladnimo ma dhiso Puntland markay dhismayso hool ma lahayn Soomaaliland markay dhismaysana hool ma lahayn Khaatuma ilaahay wuxuu yiraahdaa in raga alla waa dilaaye ma saqadiyo wixii canshuur ay ku keensato iyo dakhliina way helaysaa fahimo qorshe ani taladeedii ila maxumayn dad baa si kala u arka walaalihiin ka simid ahaada laakiin dadka reer Khaatuma walaalay yar iyo weyn buu xiraan dawladda ay gooni u leeyihiin wayna dhismaysaa wayna bilaabatay wayna dhismaysaa dibna loo noqon maayo hadana firdhiya xukuma hadalka gabadha in la raacana ma aha mar waa fahimo qorshe mar gabdhuhu waa gar heli karaano bal qiisa qoomkeedii bay ka garxishay waa gartay dadka xog badan hadii ku soo weeraraan weydan burburinayaan maal waxba inoo hareen inagoo caadi ah aan u tagno
marna dumarka mas'uuliyadda arrijaaluna qawaamuuna cala nisaa dumarka ragga mas'uulka mar xitaa quraanka waliya taama wal masaakiin la soo celiyaa agoonta iyo masaakiinta maxaa loo dhihi waayay baa la yiri rajada quraanka inta badan ma sheego marka waa mas'uuliyad badan bay helin baa lahaa marka faymo qowlshe waa gabar dad ximinayaan waa arkay dad xasradeynaya waa arkay waa gabar in adeertiina si qurux badan bayna waxdaashay garaadada haday wax ka sheegtana garaadada kama xigtaan waa garaadadeedii haday ma jarteen wax ka sheegtana ma jarteen ka xigta kama isa sheeginba oo dhulbaanta inta badan hadda wax ka sheegaysa dhulbaantana waa tolkeed marka fiimo Yuusuf Gooshe anigu caruur hal laga dhalo anaga balaayaa bay dhalaysaa waxa la gursada leedahay gabadha si u guursanahayd ku tartaa yaan balaayiga guursan day anaag dirac soo jeeso oo day soo jeeso day mar gabadha guursada wata fahima waxa sheegtay in warsangeli iyo majarteen ay furmaha soo banayaan arinkaasi soo gafweyn ma ahan in ay ما day فرunta hartiyaha ma ku joognaa dawladaha kuma joogno فرunta aan joogno oo gumaysi og anaga qabiil baan yiraahdaa harti baan la yiraahdaa meesha hartiyaha baan ugu dhimanayna فرunta ilaahay baan ugu makalifin meesha anaga awal anaga Puntland iyo anaga dawladda Soomaaliya ma aadin iyo anaga kulka shanaada mid inta waa harti baa deganaya dawlad magaceeda iyo taabiyo لا تابيبي أنا وضعنا ما نادين أنا قبيلة عمر محمود وأنت كينا ربيعديها وأنت كينا سعيدني ما صحيلون وضيع أقول له سعيد عويل الشباب ورتوا هيلا لو تقال هيل باب كتشونا ولقي إنك مغنى منه أنا جاي قاسا وعيال سي سبعة مرينية سوتشي سا نعبد الله الأسرة هذه